gadoodka aan ka gadoosanahay ee dhacay boobka lagu haayo kursiga beesha culimada reer faqe hoob 034 waxay reer banaadir yiraahdaan dulmi ma duugmaayo waa soo daara haba daaho waxaan aad yaab iyo ama kaak leeyahay in dad qaarkiis ah ay adeegsanayaan awood xad dhaaf ah oo dadka ku handadayaan ay rabaan in ay xaqooda dhacaan dadka loo dhacayna waa dad banaadiri ah oo ana hoob kursi number ay lahayn oo kursigoodana ay mar hore gateen dadkaas ayaa hadda wax loo boobay insha Allah ra'iisul wasaare wuxuu yiri wuu dhaartay wuxuu yiri saddex dhaar oo isimka Allah ayuu ku dhawaaqay waxaan leeyahay ra'iisul wasaare haddii aadan ka noqonin oo xaqa aad ka gashay beesha culimada reer faqay aad xaqooda u soo celi weyse dhaartii aad dhaaratay ayaa ku dhibi doontaa annagana wax kale ma ku dhahayno wax kalena ma awoodno dowladna mana la dagaalami karno annaga dad hubaysan ma nihi waxaan nahay dadkii maanta xornimada dhaliyey oo ilbaxnimada iyo diinta islaamka maanta waddankan keenay ayaan nahay dadkaas haddii oo xaqooda la siinan waxa imaan doona ilaah agtiisa waa la ogyahay hortan waana bilaawatay astadii oo ay gameen waa la arkay wayna soo soco doontaa wiil fara kama qodno insha Allah waxaan baaq u dirayaa walaalaheena oo ugu horeeyo musharax madaxweyne xuseen maxamed faarax xasan ciidiid ex xildhawaan axmed macalin fakhi xildhawaan cabdiraxmaan maxamuud odawa waxaan idin leeyahay walaalaheena waxaana dad ceesh maliixa isku fiicnaa xidid aan nahay waxaan idinka codsanaynaa in aad noo helisaan xaqana aad ku dhawaaqdaan sidii loo soo celin lahay kursiga beesha culimada reer faqe ee sida gardarada boobka loo xoogay ayaan niga codsanaynaa waxaan kaloo baaq u diraynaa culamaa oo diinka meel kasta ay joogaan oday dhaqameedyada beesha moodolood hiraab dhammaan waxaa idin leeyahay waa in aad soo faragelisaan dhibka lagu haayo iyo boobka lagu haayo beesha reer faqay si aad ugu soo celisaan mar labaad xaqooda oo dadkii oo meeshaas ama dhibkaas geysay aad kala talin laheedeen ood laheedeen waa in aad soo celisaan dhib kale yaa idinle horseedeen waa dadkan waa dad culimo ah oo asalkooda la yaqaano oon hubaysnayn oo ah dad nabadda wax ku raadiya wabilaahi tawfiiq shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada $1 waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EVC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha